asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteena ku xidhan janalkeena hoyga bulshada kusoo dhowaada mowduuceenna maanta oo luuqadda turkiga aanu ku baranno maantana waxaa mar saddexaad inoo soo jeedin doona walaalkeen zaalim oo ku nool waddanka turkiga la socod wanaagsan asxaabteena si aad qof af turkiga ku hadla aad u weydiin kari lahayd inta sana uu jiro. haddaba casharkii aan gudo gallo laba nooc ayaad u weydiin kartaa qofka af turkiga ku hadla. habka koowaad oo ah sida rasmiga ah, habka labaad oo ah si aan rasmi ahayn. haddii aad casharadeeda hore soo daawataan nala socoto waad fahmaysaa waxaan uga jeedno sida rasmiga iyo sida aan rasmiga ahayn. marka aynu bilowna casharkii. kaç yaşındasınız baad odhan karaysaa. kaç yaşındasınız. kaç yaşındasınız markuu qofku kaawan yahay ama aad ixtiraamayso. waxaan ku hadlaynaa afkii ixtiraamka. ama sidoo kale adoo isticmaalaya luqadii turkiga waxaad odhan kartaa yaşınız kaç. yaşınız kaç. sida aan rasmiga ahayn haddaba aynu gudubno. waxaad odhan karaysaa kaç yaşındasın. kaç yaşındasın. maxay ku kala duwan yihiin? kaç sinis iyo sin. tii hore sinis bay ahayd, tanna sin keliya weeye. marka waa marka aad asxaabtaada iyo dadka aanad ixtiraamayn aad la sheekaysanayso ama aad af turki kula hadlayso. kaç yaşındasınız. waxaad kaloo odhan karaysaa yaşın kaç. yaşın kaç. maxay ku kala duwan yihiin? inis tii hore ayaa halkan waxay noqonaysaa in keliya. yaşın kaç. yaşın kaç. sa'daa yare hoos u qalocda haddii aad alfabeetka daawatay turkiga waxaa loo akhriyaa sha. yaşın kaç. yaşın kaç. kaç micnaheedu waxa weeye imisa. kaç imisa. yash waa da ama inta sano uu jiro qofku. yash waa da. indasınız, indasın, inis iyo in. intuba af Soomaali waxaa lagu yidhaahdaa saddexan ama dabagalayaal. saddexan ama dabagalayaal ayaa lagu yidhaahdaa af Soomaali. waxa aad kaloo marka aad rabto inaad qofkii u jawaabto luuqadda ama su-aasha ku weydiiyey ahayd kaç yaşındasın imse jir ayaa tahay. markuu qofkii ku weydiiyo waxaad odhan kartaa ben, dabeedna tiradii baad isticmaalaysaa. yaşındayım baad raacinaysaa. yaşındayım. ben yaşındayım. tusaale ahaan ben 18 yaşındayım. ben 18 yaşındayım. ben oo ah anigu 18 yaşındayım. 18 micnaheedu waa 18. waxaad kaloo adoo sii wata luqadii turkiga markuu qofkii aad weydiiso uu kuu sheego intuu jiray waxyaabaha kale kusii odhan karta waxaa ka mid a gençsiniz. sida rasmiga ah gençsiniz oo ah dhalinyaraa tahay. gençsiniz. waxaad kaloo odhan kartaa yaşlısınız. yaşlısınız. sida aan rasmiga ahayn gençsin. gençsin ama yaşlısın. yaşlısın oo waad gabowday micnaheedu weeye ama duq baad tahay haddaan u isticmaalo af soomaaligii ciyaalka xaafadda. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa maanta xalqadii saddexaad ee barashada luuqadda turkiga intaan ku kulmi doono xalqadaas afraad sidaas iyo fii amaanillaah. كي أتفاخر وظننت أنا